الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، kelmaddani waxay ku saabsan tahay insha allahu tacaala ama ciwaankeedu yahay alintisaaf mima fi manhaji almadaakhilati min alguluwi waاlictisaaf. oo laga yaabaa ciwaanku inuu u baahdo in la sharxo. haddaynu soo dhoweyno alintisaaf waa طalab اlcadli wey, cadaalad in la dalbo. ciddii nabar xaqdarro ah kugu dhufataa baad ka goosanaysaa ama ka dalbanaysaa xataa tasiiruu nasafa, ilaa aada isleekaataan oo nabarkii xaqdarrada uu kugu dhuftay mid la midaad ku dhufanaysaa, kadibna waxay noqonaysaa mutacaadileyn baa la noqonaya. faman cafaa waaصlaxa faajruhu calى allahna meesha way taallaa. laakiin culimmadu waxay yidhaahdeen cafisku mar walba socon maayo, mar buu noqonayaa dacf iyo khawr, khaasatan haddii waxyaabo badani ay ka dhalanayaan. marka alintisaaf waa sidaas. mima fi manhaji almadaakhila. almadaakhila waa nisbatan ilaa rabiica almadkhali, qabiilka uu ka soo jeedaa la yidhaahdaa madaakhila la yidhahda, madkhaliyiin ama madaakhila ayaa la yidhahda. marka dadka waxa weeye manhajkiisa ku socda yaanay la bixin magaca, manhajkiisa ku socda ayaa laga hadlayaa caalamka meelay ka joogaan. waa almadaakhila ama aljaamiya. qaar ay u yaqaanaan ghulaat altabdiic, qaar ay u yaqaanaan ghulaat الطaaca. magacyadu kala fiican. nin shiikha abtirsiintiisa in lagugu laro taasaa loogu qaatay. bal markaanu madiine joognay, magaca dadka qaar ay u yaqaaneen waxay ahaayeen alkhuluuf. asalaf bay isu yaqaaneeno waxay yidhahdeen salaf maaha waa khuluuf wey, jamcu khalaf. marka laakiin magacani yaanay la bixin. in badanna waa ka maqasheen laftooda iyagoo leh waxa weeye qoladaasi waa qطbiyuun ama banaa'iyuun ama saruuriyuun ama fulaniyuun, oo odhanaya ninka ay manhajkiisa ku socdaan baa loo nisbaynayaa, haba diidaan hadday doonaan, loo joojin maayo ayaa la yidhaahdaa. marka waxba yaan magaca laga qaylin. tanaabus bilalqaabna ma aha. shiikhuna waa wada shiikheeni wey. welibana dee annagaa iska kiin xigno, kuliyaddii uu brofesoorka ka ahaabaan anna brofesoornimo ka soo qaatay, oo ahlulxadiid baanu isku nahay, oo jaamica alislaamiyaanu isku nahay, oo kuliyat alxadiid baanu isku nahay. salafiyadaana waa wada sheeganaa, waa wada nahay. mima fi manhaji almadaakhilati min alguluw. guluwgaana waa ka hadli doonaa, waa fahmaysaa. walictisaafna macnayaal badan bay leedahay. waxaa caana xadiidkii صaxiixeynka ina bnii kana casiifan cinda hada, ay ajiiran, shaqaale qofku inuu noqdo. laakiin kaa hadda ugama jeedo. waxaa loo isticmaalaa alictisaaf, ictasafahu ay dalamahu, uu dulmiya waa loo isticmaalaa. waxaa kaloo loo isticmaalaa ictasafa can الطariiqi ay maala canhu, markuu waddadii la doonaya inuu ku socdo qarda jeexo. wadaadada madaakhiladu waddadii la doonaya in lagu socday qarda jeexaya. meelaha qaar waa laga yaabaa dhabbaha inay qabsadaan, laakiin meelay ka dhacaya. ama saara fiihi bitakhabuطin calى gayri huda, wuxuu qaaday isagoo waddadu aanay u kala caddayn ayuu mawjada iska dhex galay.
وحل إلى هذا اعتسف الأمر أي ركبه من غير تدبر ولا تفكر هولبو إساقبحي هذا القول كفولة وآنو كفر سوحا كدلانيا انتينو أفردين أنا وإنتاس هذا الله إسكسي دايي والله إسليه هاي الله إسكقدب إيمان مايو إلى إنه حقيقة دي ذا الشيء عوانك ولا فهمان فيليا الانتصاف مما في منهج المداخلة من الغلو والاعتساف خلاصة دي سنة وحي كوكا ومنتهى اللبا مدي وحي تهي منهج كاس حقيقة دي سا يوحانو كو أغنهي يوحانو كو أرغني يوحي علمدي كي لهدين سيكوبا إن نوغاه الله إن شاء الله تعالى قضب كاللبادنا وإن بين أبور بدن وضد مسلمين يا جماعة أقوين ما أنت كشقيسة صومالي ميلي دكتبة دبدي يقودو جماعة سلفية إن وحوي لغتهم مي أو لغتو ري وحيابا بدن وأنا أمن سنين وبين أبور بدن لغسمي وما أنت حالكم مريو بل هدي مدحوينه عر مسلم يهي هسو استاغان oo ha sheegan hawshu ba dhamaatay marka waxaanu u nimay inaanu ilaahna waa muslim hawshu ma dhamaanaysa waa ku celcelinaya waa muslim xasan sheekhna waa muslim siciidani waa muslim halka ka sii wad waa muslimiin gaalnimo kuma hayno haday ku dhamaanayso وهذا التليفون صوت دران هلكاسا ku joojinay laakiin dawa ogtii dhamaan mayso waxa weey taa ku dhamaan mayso mawduucana waxa igu dambeysay inaan ka hadlo 12 sano ka hor 2014 inta laga jooga ya waa dhowr iyo 10 sano 12 sano halka mar baan hadlo waxa weeye intii ka dambeysay إن اللي يلاهده ورنما كيسا سيلاهده يا كليب كارد جيسم موياني وإنت عند جيستو كسي صعدة موياني وحويه مالنا حولها مجرين ما أنتنا مركان أركي إن علماء دي صوماليات وأنكم مركان نلانا هي جماعة الاعتصام بالكتاب والسنة وما أركو كوحي ركوبا وما أركو وأمير له ولا استيوان قليو أو حوية دوم على سنيس وحنو أقانا وحيجا كصاهري منهج كأيد دشستيرنا آمن سن أما حبينها كنغم أما يانو كنغم عقيدة ذو ذمال بيكو قرتين كوبية طبعا علماء ذو ذواوينا وبدن كودو عيدتين بعد ديوان قليي برناكا سيتا الله عيدي كما هذا شو مالك لا وحلق الدية عقيدة ذلك آمن سن حبنا أنك هاي شرنا أنك لقيب قرين حقنا أنك هاي لكن مركا يصب هذا المحاضرة وذا قليال وهو حساب سي مركا سيدا اللي يلاهدنا تي علماء ذي النور نبسو قليس وانا سيدا يقو كل رغمان ninka aan yaga u diiwaan gashanayn salafiyadooda gaarka aan la qaadan mawaaqifta gaarka aan la qaadan ninkaasi agtooda salafi kama ah waana laga digaya xubin jamaacaha ka noqdo ama yaanu ka noqon mawduucan waxay soo gaadhay inay walaaluhu yiraahdeen warday dagaalka waana lagu bilaabay anagu maanaan bilaabay sheekh Umar baan lagu bilaabay marka taana jawaabteedu waxay tahay sheekh Umar waa sheekh Kiiniyana weey Kiiniyu dagay baasaboorkeedana haysta Soomaali hano waana sheekh ummadda Soomaaliyeed oo dhan ah ummaddu wada dhageysato kuwa maagaya kuwa kaleba waa dhageystaan sheekh Umar wixii muuqday haduu Nairobi ka yiri oo adigu aad Somaliland keentay jawaabti oo walibana umal aadan ku kaaftoomin culimo kale aad dusha ka fuushay
وهذا السر شيخ ملوح أصعد إنما كانوا بدبادية شدقوية وقالوا قرطة بكجو محل ليلي ويش الجورع صعبها كوكوستين إن أسر هذا الشيخ وحنو وضب قولوا كالدفاع يقول الله ماذا حكى شرع تيتين وكهر لنا تنوع سوي مركادي قبل أبي هذي تهين هذا هل كان كنتي إيوه هذي أي تهيبة شيخي كلها اللي ولبنا عدية إلى أنه كم إذا هي هذا وحوية ولا بحري كل قاعدة سيكون صعدانه وحيلي المرة دول الله شقيه هبي هذا كن شركة مده هو مثله والله مدوي مرة دانو كدجي وأنو تبديعني حكم كيسو قاضني قاعدة سيكون صعد محاضروي كان اسكتشيدين بينه وتشيدوين بينه كحقيقيين كو حكا منهج كالسلفي صحراء إن dadka loo cadeeyo oo waxyaabaha lagu soo daray dheeraadka laga saaro isxaaq ma diidin buu yiri xaqda dambaan diiday xaqda dambeenu la dagaalamay tasaafiga baa la isugu wada imanay qodobka labaad mafaahim la khalday iyo mustalahaad la khaldana in la cadeeyo halkeedii ku iman doonta tasaddexaad تبرئة للذمة براءة الذمة وحوية وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه حق أد أكتهي إن أتشاكت واللبهي ولذلك مدة صد صناعة باب بوق سعودي مالك الله هذلو قيل بضم باب بحضة marka la isu jawaabo waa tan laha 10 sano ka hor baad doodahan ugu dambeeyay laakiin iyagu inta ma aamusnayn 10 hadii la dhigay kelmad hadii la jeedinay xaflad hadii la soo xiray waxa weeye ay makaan oo talabatul ilmi isugu yimaadaan oo dad isugu yimaadaan waa lagu darayaa intaas wala dhex gelinay قارنا وبل الدوبيو ولا سوديني marka xaq illa cadeeyaan mar walba laga aamusin waxaan in salafki kamida laga sheegay ida sakattu ana wa sakatta anta famata yatabayyanu alhaq hadii ana aamuso adiguna aad aamusto xaqu goormo cadaanaya qodobka afraad ujeedadu waxay tahay inagoo xaqiijinayna xadiidkii Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala an ee Bukhari ku yimi ee nabigu alayhi salatu wassalaam unsur akhaka zaliman aw madluma oo nabiga la weydiiyay alayhi salatu wassalaam waxa weeye araayta idha kana madluman fakayfa nasru adu zalim yahay waa fahan هدو يهي مظلوم وافهني لكن هدو ظالم يهي نصر يسوى سيدي نبي وحور عليه الصلاة والسلام تمنعه من الظلم فإن ذلك نصر تحجزه عن الظلم فإن ذلك نصر هرت ولا لها أن لنا هي ظلم بيكون عين بقصد أو بغير قصد ولا لها هرت ولا صحية قعنت ذا لقبنا يا سوى للماء وحل حسوسنا يا عاقبة الظلم الوخيمة أي الله حسوسنا يا وحل حسوسنا يا ددك ولا له ذا إني فران فرك كدايان نيوين كإني باران إني كدايان ملحمان إني كدايان وملها يوانا تشيان بلغ الدوني انت سانو كدونين عداوة دي ما شفت مظلوم كانت دوا وأختي نصر باهين وهي قفل ظلمية وقف على السارية ظلم باكل دعي نفسيا بالغيا بان علي صفوله marka kii madluumka ahaana waxa weeye isagana in culayska laga qaado oo la difaaco oo xaqiisa loo soo dhiciyo oo niyada loo dhiso yaduna kama midna qodobka ugu dambeeya jamcan lil kalima wa hifaadan ala wahdati al mujtama
waxaynu doonaynaa inaynu kelmadda dadkeena aynu midayno intaynu awoodaynana dadka diinta ilaahay ka shaqaynaya khilaafka dhex yaala la yareeyo khilaaf dhammaan maayo walaa yazaaluuna mukhtalifiin ila man raxima rabbuh laakiin inaynu yarayno aathaarta uu keenayana inaynu meesha ka saarno ee aan wanaagsanayn taasaynu doonayno mawduucaana faahfaahintiisu dib bay ka iman doontaa walaaluhu ma yagaa tafaruq wada mise dadkan kale ay haystaan baa tafaruq wada waynu arki doonaa insha allahu tacaala walaalaha salafiyiinta ah iyo walaalahan aan sheegay ee ballaadhan waxa weeye markaan leeyahay ballaadhan waa fahmaysaa baan filaya ragga qaar baa waxay yidhaahdeen laandheero bannaan degay baana marka maaha eray culimo isticmaasho maaha laandheere iyo laagaab iyo luqaddii cilmiga maaha marka laakiin walaalahaasi intaan ogahay 3 magaalo unbay nashaad ku leeyihiin waa Burco iyo Hargeysa iyo Muqdisho waddanka dibaddiisa iyo waxa weeye Djibouti iyo Ethiopia iyo Kenya nashaad la sheega ku male culimada joogtana waa la yaqaan laga yaabaa hebel iyo hebel in la yiraahdo ama masjid al-Basira iyo fulaan in badan baa ku noqnoqdo xogta taala waa ogaa Djibouti in badan baa tagay Ethiopia waa tagay waxa weeye gobolada kale Soomaaliya waa wada tagay meelaan laga ba aqoon ba intifiyada laga daawado mooyaan qurbahana hadalkeeda dawa wax waa ka joogaan laakiin waa lagaga badan yahay tira iyo tayaba waa lagaga badan yahay buura mana de hadalkeeda da arigaabo laascaanood wujuud la sheega kuma leh walibana way kala duwan tahay 3 magaalo ee ay nashaadka badan ku leeyihiin waa Burco iyo Hargeysa iyo Muqdisho qolada Muqdisho way naga latifayeen kuleelku dadka waqooyiga ku badan yihiin Soomaaliland baa yara hadal kulkulul Burco iyo Hargeysa markay noqotana waxa si hadal kulul baa la yiraahdaa Burca la xamanay buriya tooriye baa lagu sheegi jiray laakiin maanta baahish Hargeysay fadhida kuleelka iyo dagaalka iyo cunfigu Hargeysu yaala marka intii ay doodayeen waxa dhacay 4 doodood oo waaweyn mid waxay dhacday 98 ilaa 9 cajaladood baa laga duubay doodan maanta taagan oo basocotay mid waxay dhacday 2005 Burcay ka dhacday Burca markay ka dhacday anigu jaamacadda Madiina dhiganay aad baa loo doodo cajaladihii baan soo gaaray dabadeedna aabba xajkii igu yimi Allahu naxariisto waxaan ku uri aabba daabaad joogtaay maxaa dagaalka ku galiyay ciidan badan baad haysataay wuxuu war kuba sii fogaale kelmadu baan iriyo kelmadda maxaa kugu kalifay baan ku uri wuxuu iri in badan baan dhageysanayay iyadoo nala bidcaynay wax walba lagu sheegay laakiin waxa ka adkaysan waayay buu iri maalintii aan maqlay al-i'tisaam والتبليغ والإخوان المسلمون وكذا وكذا كلها في النار إلا كذا marka aabba wuxuu yiri mar hadii naarta la isku shubay fadhimayaan mar hadii naarta la isku shubay fadhimayaan buu kelmad buu yiri uma noqon aniguna maanta waxaan u soo kacay 10 sano ka bacdi markii la yiri cariya oranaya madaxweynuhu waa muslim waxa laga yaabaa inaan dib u soo noqon baqdina baqaya ma baxsashana ma aha laakiin kulli 10 sano ama 15 sano kadib baan hadli lahaayo markaana retire baan ahayo oday baan noqdo oo daaba gaaray waxa laga yaabaa inaan ku soo noqon intaana de rag badan ba soo baxay laakiin maanta ila muuqatay waajibka inaan iska rido xogo badanna waan hayaa 2005 saasay u dhacday la ghalib wala maghlub nin waliba xujadiisu turtay heshiisna ma dhicin tanaasul ma dhicin
hal la isnabad galiyo ma dhicin qoladii xabadda wadi halkii bay ka sii waday xilliga laga bilaabo ilaa 2013 wax weyn ma dhicin 2013 baa haddana dagaal weyn dhacay oo aniga iyo asxaabtaydii qaar ka midi aanu dagaal oogayaal ka ahay qisadeedana waa ka warrami doonaa insha Allah ta'ala oo aanu intaanu nimi masaa'il ka hadalay waa tabta hadda dhacday masaa'il baanu ka hadalay oo aanu cadaynay halkii naloo jawaabi lahaaba waxa la yiri waxa weeye wadaadadii kala la fuulay waxaanu ku niri waryaare wax iska difaaca shaqay isku barihiin anagu masaa'il baanu cadaynay dabeedna iyagii baa lagu miisay iyagiina difaac bay galeen dood dheer baa dhacday ta ugu dambaysay waa tan anigu labadii hore 8 iyo 2005 ma joogin وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين وحي لا دوبay mooyaan wax badan xukumananahay laakiin tii waxaan ogaa oo aan bilaabay oo aan qayb ka ahaa aloosankeeda 2013 natiijadeedu waxay noqotay ugu yaraan 100 intaan ogaa burciya hargeysa iyo meelo kale iyo qurbahaba intaan ogaahay 100 arday oo talibul cilmi inay manhajka ka baxeen oo qaar aan ogahay inta loo yimi la yiri wadaadkii aad difaacaysay Dr. Xasan oo inxiraaf miyaad arkay dacwadda halku la maray ayuu warintaanba waan aaminsanahay waa shay kar waayay dabeedna waxa la yiri saduuqi aad noo haysay soo wareej dibadda u bax mar hadduu dibadda u baxay meel istaagi baayay ragii kale u tii waana sheeka ay yaqaanaano qofka hadii laga shakiyo dabada in laga sii laabo waa kii la joogay hadda wala si carabinay maantana waxaan ka baqayaa inay qaar badan si carabiyaan oo waxaan sidii xilliyada qaar dagaalada waxayba u oogayaan mar waa in ay nashaad ka helaan oo waar wali waanu jirnaayo xabadu keebkeena ugu jirta tawa dad badan ba ku ogaa laakiin labadan cisho fiqi kala ay soo baxay waxaan sidii wariyaaha amay hawsha ay qayb ka tahay sidii dhici jirtay kuwa ay awalba ka shakisnaayeen markay qombolada qarxaan inay yiraahdaan waaridkuna waa iscadeey waxa weeye kadibna ay sida kaga takhalusaan marka rag badan oo leh waardiyo intaas waxa weeye waxba ka jiray ama su'aala kula noqda wax way weydiiya waxa laga yaabaa culays badan inuu soo wajo marka kulli meel ku dhamaan doonto garan maayo laakiin wadadii aabahay baan marayaayo ku sii fogaan maayo nuxurka ugu weyn hadaan cadeeyo waxa weeye waxa laga yaabaa insha Allah ta'ala waynu eegaynaa wixii ka dhashay waxa laga yaabaa in la isweydiiyo wadaadadu hadiya habeen dooda way wadaane qoliyahan kale maxay uga aamusay sababa keenay ko waxa la doonayaa dadka dhagahooda in la ilaaliyo waayo culimadii iyo tamaysa walibana hadii la galo mawjada aan wanaagsanayn hoos la isula dhaadhaco oo dadka la dhaga barjeeyo oo waxaan laa'iq u ahayn la maqashiyo walibana ay ka maqlayaan dad culimo ah waa dib aad u weyn dadkuna waa ku fitnoobay inta waxa loo aamusaya dadka dhagahooda in la ilaaliyo tanaasul badan bay la sameeyaa idoo dadka dhagahooda la ilaalinayo qadiyada labaad waxa la ilaalinayaa sumcatu dacwa wad du'a wal ulama iyagana sumcadooda la ilaaliyo oo wixii dani ku khasabtay mooyaane wax badan in dhagaha laga furaysto inta waxa kaga baxaya wadaadadan horta in badan baa la igu xisaabinay hadda waa laga yaabaa social media ina ku aragtaan caaq buu noqday iyo u caasi garoobay iyo culimadiisii buu ku soo jeestay ilaahay baan ku dhaartay inaanan maalina ka mid noqon masjid baan joogaa hal maalin kama mid noqon sababtana waan idin cadaynay markii aan cilmiga bilaabay 96kii anoo arday secondary 1996 ayaa culimadii aan wax ka dhiganayay waxay ahaayeen culimo i'tisaama ay ahaayeen xilal ka hayay
culimadaasi waa isku jireen qaar wali waa ictisaam qaar iyagoo ictisaam ay dhiteen allah u naxariistay waa bahay ka mid yahay oo markaaba cilmi aan ka dhiganay culimada qaarna ictisaam bay ahaayeen laakiin waa laga soo guuxay oo raggan hadda ka hadlaya hargeysa ka hadlaya baa xilligan noo iman jiray marka ninka isleeyihiin waa isfahmaysaa ama isla jaan qaadaya bay la fadhiisanayeen xilliga aanu culimada wax ka dhiganaynay su'aalaha la weydiin jiray sheekh jamaacada ictisaamka ma gallaa dabeedna wuxuu ku jawaabayay dadka dalabatul cilmiga dhiganaya yaanay gelin cilmigay kaga mashquulaya hadday khalad sameeyaanna ma sixi karo waayo cilmigeeda ma hayo laakiin markaad mustawi cilmiya gaadhaan mafhuum mukhaalafuhu muxuu noqonay sheekha ku been abuurma inaanu odhan baan u malaynay laakiin usul fiqiga waa fahmaysaa mafhuum mukhaalafuhu muxuu yahay haddaad cilmi yeelataan gala annaga haddaadna eeganaysaanna dee cilmi baanu leenahay maydaan gaadhina jooga meeshan waa baxrulbuxuur saasuu macnuhu dhacay culimadaasaan wax ka dhiganayn wax la yidhaahdo madkhaliye iyo salafiye iyo jaamiye iyo fulaan ma jirin magaca salafiyana manhajkuu ku yaalay jamaacatun salafiya baa ku taallay 1981 markuu master ka soo qaatay aaba jaamacatul imaam oo aan ku dhashay markaa ee uu yimi burca soo degay shaambadii uu waraaqaha ku dhufanaya waxay ahayd shaykhu dacwa salafiya fi burca dokumentigaana cidda u baahata waa la helay hadda jeebka kuma hayay laakiin shaambad macruufa bay ahayd waa laga yaabaa ingiriiska hadda in laga soo diro caalamka oo dhan buu u kala diray hadday fatwo tahay hadday xog tahay iyo wixii la mida shaykhu dacwa salafiya fi burca horta magaca salafiyaduna saas uu ahayo xilligaaba waa socday wax cusub ma ahay laakiin manhajkan gaarka ma jirin sidaa awgeed anigoo ardaya oo waxa weeye culimada kala duwan laakiin wada ictisaamka wax ka dhiganaya ayay bahashu marba marka ka dambaysa waxay u sii siqaysay kala bixi ila kala baxo ayay u sii socotay waxaan xasuustaa maalmahaas oo anigu dee dadku isku mid ay yihiin ayaa waxa bilaabantay in si gaara loo shiro ardayda waaweynna ka mid baan ah marka shirarka dee waan ka soo qayb galaa haddii la yidhaahdo joog dee waxbaa kala kacaya waa ka qayb galaa shirarka waxaan fadhiyay xilligaa waxaan u malaynayaa 98kii bay ahayd mise 97kii kulan maktabad lagu qabtay baan ka qayb galay waa maalintii ugu horreysay dareen uu galay rag dibadaha ka yimi baa yimi su'aalaha la isweydiinay su'aalaha waxaa ka mid ahaa الدعوة السلفية ما أنت ما هي ستم مساجده مقالده بدي أعمل وضع صوت الدعوة السلفية مساجد دم لا وتاجر كأ أنت إنه مساجد كهلا الناس يدينه يلا شيخي وحو كل شوابك وأنا هذا شوتان كسي ميل أرجع حباي قرايو وعمالك يوجه الرساء عن درامي إن وحكلا السعودان كسي ميل قارد بني kaasi waa sahlanaaye mid kale ka daro wuxuu yiri sheekh waxa weeye masaajidadaas bimaana nimankaasi hayaan hadaan ka kaco oo aan kelmad ka jeediyo aan ku radinayo baatilkooda oo uu iga daba kaco ilaa ninkii masaajidka joogay wuxuu diiday yahay masjidkii baad la timi oo mid iga daba kaco aan iga laandheereysnay wallahi yaabaa niyada inuu ku hayo inuu ka la gaabsay إلا لفظك معناه ما لين ماشى لكناه ما أو يقدر دبكة عبودي ميدان يقا لانديرسنا ويقدر دبكة وبهال دربحان وتاب محين نقولش وذات بعد شواب ولا بأسبو سيارة فضوت عن شرح هي تفصيل لهاي عدالة بن صمينا ياي وذات كلام بكذب التغير السحمة بس ما نربحك oo dadkaas ka fujiyay oo hawshii ka bedelay sidaas ay ku socotay
kadibna tatawur baa dhacay masaajidda la helay macaahid baa la helay aad baa la isu bedelay markii la dhisay masaajidadaas anigu jaamacadan ku maqnaa oo dalka ma joogo waxaan u imi in badan baa maqasheen dawla taxta dawle dawlad cusub oo la aasaasay baa magaalada Burco weyn oo xididaysatay oo masaajidda leh oo maraakiz leh oo dacwad leh masaajidadaas iyo maraakistaas intii hawshaasi socotay ee la kala soocmay anigu waxa weeye waxay ii taagnay labaduba waa salafiyiin haba ha kala gurtaan xuduudada ha kala xidhaan waxaan iska niyooday labaduba inay salafiyiin waa halkii aan kala qaaday aan cilmiga kaga bilaabay dabadeedna duruustoodana waa dhageystaa culimadoodan ka dhageystaa kuwa cusubna anaa wax u dhiga kuwa ileegna waxbaan wada muraajacaynaa iyagaan u badnaa qolyaha kalena dee dushayga la socdeen oo ninka xaggaas uu badan yahay baa la odhan jiray waxa dhacday aabba in layga dacweeyo la yidhi sheekh cali oo nimankii dee xitaa inankaagii baabay u soo dhaceen ay wataan oo iyagoon baa lagu arkaa jawaab fiican buu siiyo wuxuu yihi mar hadduu cilmi dalbayo faraha ka qaado faraha laga qaado taasi waxay keentay marka fadhi la fadhiistay la yiraahdo nimankan itixaadka ama ictisaamku waa sida iyo sida qodob la sheego intaan noot gareeyo inaan aabba u tago yiraahdo aabba taasala idinku haysta dabeedna isaguna jawaabtiisi uu waxa weeye xoogaal buu hayo uu siiyo marka waxaan ahaa marka xagga laga heego anigoo aan 20kii cagacagaynaya baan dhexdhexaadiye ah maantana waxaan isu arkaa inaan dhexdhexaadiye ahay aan wax isu soo dhadhaweynay oo waxa weeye dhexdhexaadinta waxa kamid ah inaad meelaha madmadow ku jiro labada qolobaad u cadayso isu soo dhawaasha ka dhalanaya hawshaasi aad bay u socotay taasi waxay keentay culimadii iska daayay ardaydii aan wax wada dhiganaynay in la isu kay tilmaamo la yiraahdo ninkani wallahi warkiisu ma cadda oo sidoo u cadaanaya Sheekh Cali Warsamaaba dhalay nin magaalo kala jooga aan Burco joogin baa la yiri Sheekh Cali Warsame waxa u soo baxay nin manhajkii fahmay oo inaga filnaan doono salafiya baa soo baxay bani dabeedna jawaab fiican buu siiyo warba Sheekh Cali Warsame dhalay haaba li kaasi weligii daahiri maayo marka bariga anigu waxaan u fahmay waa dhowr iyo 10 sano ka hor waxaan u fahmay kaasi weligii muuqan maayo yaani la yadhar annahu salaf laakiin bari dhaweyd baan arkay maxamed ibn saciid ibn raslan oo nin culimadoodii waa weynaaye jazaa'ir oo la yiraahdo mukhtaar at-tibawi oo arki doonta kutubna qoray ninkaas uu bixiyay mukhtaar an-najsawi mukhtaarkii najska marka dib baan u kala fureeyo waxa si wartoro hadalkii ninkaasi daahiri maayo waa bidcoole najiso ya waxa lagu dhisayna waa fahmaysa waxa dhalay odagaas dhalay xilligaas hawlahaas bilaabmay waxa dhacaysay asxaabtaydii aan wax wada dhiganaynay oo iyagu de si fiican u cabay waxa lagu shubayo cid ka shubtana aan haysan ilaa aniga marka la igu shubo barqadii duhurkan aabba la qadeeya dabaadna dhowr mawjadood baan u dhiibaa uu iga shuba ilaahay baa runta jecel qaarna waxa weeye igama dhaadhicin waan kala doodi jir in badan walaw hadda aan ka nadaamoodo oo waxay ahayd waxa weeye kelmadan ay sheegaan ay yiraahdaan masaajidadooda iyo meelahoodu waa bahla galeen waa halaq baa galaan cid walba almutaradiyatu wan-natiha waxalba way isugu keenaan oo cid walba haday darsi dhigayaan cid walba waa fadhida waxa weeye masjidkoodii cid walba waa imanaysa cid walba kelmad bay ka jeedinaysa tabliiqa soo dago wax ka wacdiya ikhwaan muslimiin ba muhaadara ka galaya aad baan uga la hadli jiray aabana taameel adag buu ka taagnaa cidii xaq sheegaysa mar hadaanu waxaan diidanahay aanu sheegayn waa fasax
وأنا مسألة التعامل مع المخالف إن شاء الله تعالى يدنا حلقات بيلان دوتا فردي بدن بيوباهنت صاحب بداي waxay oran jireen ilaa xitaa marka jaamacadda tagay Dr. Xasanow nimankii aad difaacaysay i'tisaam waxaasay sameeyeen dabadeedna markaan fasaxa imaado ama baa dhacaysa inaan aabba la hadlo aabba waxaasaa dhacay baa leeyahay aabba wuxuu ku jawaabayay haa way dhacday laakiin waanu xallinay sax ma yahayn talaabaanu ka qaad oo maxay tahay kada wa kada saaxiibkay baan ku noqdaa markuu ii sheegay aad buu xamaasadaysnaa oo xuslaa ninka ku soo tashkiil aad buu ugu jibaysnaa laakiin markay jawaab noqoto waana dhaqan ay leeyihiin حتى شيخهم ربيع المدخلي وأبو الحسن المأربي يعني الحسن الحلبي يرق بدنوا يسكون دعين وحي يلاهدين شيخ مركا وحي سكوغ الشبا وحكد وانا هداد بلاوضو آد كل دقي سلمي وانا دقى بن آدم كلي وحاد سلاذا هاي الشيخ واتكو قنعنا يسا بعضو بلاويس دابنا حماس كي سقوا وهيين وحكو الشيخو أيام بقول يسيديت الدرجة حقك لو وريغي ولا مشغولين يا أما هي أما سوكو بالورنا يا أما يا وحلو الدرسين يا هذا الكاغا إن ديار الله نيكي صاحبك يا عندك سنة يجيبيسنا مركان أبلاغ ورهوشي دوال لحلي ها ما لحلي مع السلامة هذا أورر ما يوال لحلي هذا الكي مكوض أنا بالغي يا با إنه يقدوا لكن ما لك له أيو سيوضي مركي أنقل شبيه وسوكو بيه markii aan qalin jabiyay ee aan soo qaatay PhD oo wali anigu aan laba ka dhaxeeyo ah laakiin hangool la iskaga keenayo oo misaashidadooda aan waxba ka dhigin laakiin aan la kulmo iska sheekaysano wali aan siraado bal intii yareeyda lagu ogolaa aabaha ma soo dhawaane intii adiga lagu ogolaa bal ilaasho oo xoogaa dhexdhexaada samee ayaa waxa weeye say u socotay maalintii aan soo qalin jabinayay baragii Madiina ila joogay ilaahdeen war ninkii Xasan baa soo socday xaalkiisu muxuu noqonay warkana way hayeen jawaab kooban bay bixiyeen oo waxay ilaahdeen waxa weeye cinda man nazal bayna hadal midha ragii hore laga sheegay waxa la yiri raqaya meel ay hayd mooyaane ayaa waxa la yiri ninkii hebel baa soo socda deena nin baa la weydiiyay وحور عندما نزل هدو دبد عولياشا كسو دغانا يغو كميدي هدو انغا ينغو سو دغو حقينا يسو سو ديبانا انغو انغا ميديه انغونا د وركaygu waa iska cadaayo masjid weyn oo santarka burca ku yaala buu aaba ila sugay aaba qacanta ku hayo masjidul madiina xaji abdi awad indha deero u dhisay Allah u naxariisto kaasa ay sugayay oo aan dacwada ka bilaabay marka wadaadadii wada hadal baan u galay waxaan ku wari idin kana waan idin la shaqeynaya sidaan idin la shaqeynay masjidka aaba ii dhiibayna waan haynaya waynu wada shaqeynaynaa baan ku dhexdhexaadin baan doonay marka laba qodob baa lagu cileeyay mid waa la ii sheegay midna si kale igu soo gaadhay mid waa la ii sheegay waxa la yiri waarday hadii la yiraahdo ninkaasi waa salaf oo warkiisu waa cadiya masjid kale oo nimankaasi hayaana aad degto intii koogu timi aanu ku soo dirnay ama soo noqon waaya oo sida lagu ka haysta marka xuduudka waa kala qaadanayna mar hadaad masjidka tagtay shaqana inaga ma dhaxayso taa wala yacdi warkeedu waa cadda mid labaadna dib bay iga soo gaadhay oo dad kale lagu yiri waxa la yiri anagu isuma gudubno tamayus baa dhacay xuduudadu waa kala xidhay ni waliba masjidkiisa iyo maraakistiisu haysta ni yaro doctoro hadda soo baxay oo dhalinyaro ardayda ah inuu yiraahdo labadaba waa ka sareeya anigu xuduud way furanta taas wax macquul ma habali marka xuduud hala kala xidho horta qisadaydu sidaas ay ahayd oo waxa weeye ay ku soo dhamaatay in yaro tacaawuna haday ogolaan lahaayeen waa la shaqeynaa waxa ajiib la yaab bariya dambaano xaramka rag ku kulanay Yurubta ka yimi waxay ugu yiraahdeen
وارد علماء nin salafiyaan ku haysana waxa culimadii waxay leeyihiin ninkii lama hayo xisbiyiintu dhex galay oo dib nooguma soo noqon waxaan ku yiri hadda la hadal diyaar baan waa soo noqonay laakiin bila shuruud ba ku soo noqonay anoo masjidkayga fadhiya oo dadka la shaqeynaya oo ummadda kale ku dhex jira haday ogol yihiin hadda noqonay waan la hadlayaa buu iguma soo noqon waa wax suura galama waa hal soo dhamaatay muqaddimada waxaan kaga baxayaa wadaadada haddaba maxaa iiga muuqday anigu maanta gali maayo tafaasiil badan gali maayo qodobadii aan anigu indhahayga ku arkay tusaalayaasheeda aan hayo in badan oo kamid ah aan goobjoog u ahay walibana carab aad ugu mashquuli maayo qodob baa laga yaabaa hal tusaale inaan ka soo qaato anigoo Soomaalina ka soo qaadanay waxaan ka soo qaadanayaa waxa weeye waaqiceena ka soo qaadanaya fogaan maayo waayo haddaan mawjada caalamka galo waxa Yaman ka socda Jazaa'ir ka socda Sacuudiga ka socda Maghrib ka socda Iraq hadda ka socda Liibiya iyo meelo badan mawjada aynu ka dhamaanayna ma boqolaal kitaab baa la alifay oo la isugu jawaabay laakiin anigu waxaan isku dayayaa waaqiceena inaan ku soo koobo insha Allah ta'ala marka caawa ka wada gaari maayo waxay qoran ilaa 20 qodob dadka qaar waxay gaarsiiyeen dhowr iyo 8 intaan ogahay mukhalafo qaar waxay ka cabireen inay tahay qayb kamidi usul waaweyn oo iyaga laftoodu ku bidcoobayaan laakiin anigu halka ma gaarsiin waxaan ku kaaftoomay mukhalafaat inay tahay walaalaha qaar way qabaan in daaqada iyagana laga baxo laakiin waxaan ku iri midi ku taag waxa ka fiican illa saxo marka caawa hadii waqtigu inaga dhacay qodob iyo laba insha Allah ta'ala ka tilmaami doona qodobka koowaad walaalahaas waxa ugu weyn ee anigu aan kaga booday ee dadku ay diideen ee rag badan ay kaga baxeen uga soo istaagay ragooda ah waxa weeye israafuhum wa ghuluwuhum fi at-tabdi' in dadka la bidcaynay lagu degdegaya in la bidceeyo marka la bidceeyana ahkaamtii bidcada kii ugu adkayd lagu dabaqayo hajrul mubtadi' salaanta laga goosanay illa lidarura lala macaamilay taawun dacwadeed lala sameeynay waxba aan lala wadaagay marka bidca marka horana ku dhisan waxaynu arki doonaa mala awala ama masaa'il la isku khilaafay oo ijtihaadiya waan tabdiic gaashiisnay iyo waxyaabo lamida lagu dhisay mar labaadna laga dhaliyay ahkaam aad u adag laga dhaliyay taana waaqiceeda wala la socda qawaacid badan baa laga dhaliyay man lam yahjur al-mubtadi'a fa huwa mubtadi' man ta'amala ma'a al-mubtadi' fa huwa mithluhu iyo waxyaabo lamida taas waxay keentay rag badan oo arkaan waa madhabtaas illa bid'iyay waxaan goobjoog u ahaa Madiina marka jaamacada dhiganay Urdun waxa nooga imanaya Amman Ali Hasan al-Halabi dabadna waxa la yaabi jiray ninkaas sida loo boonbooninay ee loo daba guuray ee raggaasi ay u weynaysiinayaan ayaa waxa weeye aan la yaabi jiray bacda sana ayaa waxa weeye lagu bilaabay dagaal lagu bilaabay Rabi' al-Madkhali waxa uu إذا لم يكن علي الحلبي مبتدعا فلا يوجد على وجه الأرض مبتدع ونكي شلي أولى السعودي أمانيي بومبونينيي هدي علي الحلبي أنو مبتدع هاي الدنيا ذا كوركيدا المبتدع كقرن ماي وحكلوا لمذهب الحلبي شر من مذاهب أهل البدع من المتكلمين وغيرهم متكلمين مركل اللي يداهدنا دي شهمية كبلو معتزلة كحج الشاعر ماتريدية وفلان وفلان وأن كشر بذب وبركيس خلافه أبو الحسن المعربي بالله ويسقر السيدة اللوب بنبونيني ولا بدعي
markaan sanadkii labaad ahaabaa wiilkiisa alxasan ee lagu kuniyeeyey wuxuu soo galay sanadkii koowaad iska daa isaga inankiisaasaa loo daba guurayay waxaa dhalay abulxasan alma'rabi baa dhalay inankiisa 20 daba socota shiikhii weynaa baa dhalay baa la dhahay innaga ciidana laba daba socoteen Soomaalidu iska qalabsan yihiin intaas oo iska kaftare waxa weeye aad baa loo daba guuray markii aabihii la bidceeyay wallahi waxaan arkay isagoo keligii socda aan cidi la socon awal la jamac baa daba guuri jiray markii aabihii la bidceeyay baa isagina lagu daray ila kala hari maayaan waxa dhacday qolkii aan deganaa sanadkii koowaad ee masterka markaan ahaa waxdada la yiraahdo waxda thalitha ragi Madiina yaqaana saddex arday baa wada dega anigu ka albaabka ugu xiga deganaa arday qolkayga ugu xiga deganaa oo Yurub laga aqbalay oo cadaan oo soo islaamay laakiin jaamacadda sanadkii afraad shanaad maray ugu dambeeyay muddo jaamacadda dhiganayo carabidana yaqaano maxad ka soo baxay ayaa mid kale saaxiibiin soo booqday aniguna qolkaygaan fadhiyaa waa la ismaqlayaa qol kaliya aan wada joognaa aluminum yaro gaaban oo anaga dhar leeg baan ugu kala xiran codku waa isu gudbaya wuxuu weydiinayaa 10 imaam ee labada xaram tujiya Sudaysi Shuraym ragi xilliga tujinay 2006 meelahaas ah 10 imaam oo labada xaram tujinaya ayuu midba magac u bixiyay miduu yiraahdo waa Mumayyic miduu yiraahdo waa Ikhwaani miduu yiraahdo waa Qutbi miduu yiraahdo waa fulaan waa Saruri magacyo badan buu bixiyay uu ku bidcaynay wuxuu ka soo reebay 10ka magaci aan maqlayay Sheekh Ali al-Hudayfi ayuu ka soo reebay laakiin hadii la weydiin lahaa garan maayo hadii uu salafiyadii baaqi ku yahay iyo haduu islaamnimadiiba baaqi ku yahay waayo qaar xitaa soo islaamay baa markay waxa galeen markii dambe iskaga laabtay islaamnimadii oo la fitnay mawduucaas markii sida loogu talax tagay waxa ka dhalatay ahkaam badan in laga dhaliyay walaalaha waxa weydiinaya waan isleeyahay waa inay isweydiiyaan war culimo waaweyn oo shalay safkii nagaarka ku jiray oo ka mid yahay Ibrahim ar-Ruhayli oo ka mid yahay Abdurrazzaq ibn Abd al-Muhsin al-Abbad al-Badr oo ka mid yahay Abu al-Hasan al-Maribi oo ay ka mid yihiin mashayikh al-Urdun Ali Hasan Halabi ومشهور حسن سلمان وسليم الهلالي يا رag badan oo Jazaa'ir iyo meelaha la midka ah jooga oo aad ku sheegaysaan a'imma wa ulama aad ku sheegaysaan oo markii dambana aad bidcayseen maxay ku baxeen ma isweydiiseen arday aad ku tacabteen oo anigu aan kow ka ahay oo maanta inta PhD qaadatay ee iyaga ka faa'iideystay ee waxa weeye wadanka yimi qurbaha tagay ee jaamacatul Madiina iyo jaamacadaha Sacuudiga PhD ka soo qaatay ee manhajka wax ka soo qaatay ee soo maray haba lagu kala adkaade oo maanta meel adag ka taagan oo la waxa weeye ummadaha laga qabto oo qaar ay kutub ka alifeen qaarna sidaydaas oo kale marbar la kalifo waxa weeye ku tuuray qaarna ay banaanka ka mareen ma isweydiiyeen kumanaanka ay qacanta ku hayaan ee waxa weeye sidii tusbax daatay maalin walba qaybi baxayso marka sidaa uu eegay waxaan sidii wadaadadu waxay ku xisaabtamaan inta yar ee jaamacadda iyo maxadka joogta ayuun baa lagu xisaabtamaa iyo inta waxa weeye ama hadhow la shaqeynaysa ku xidhan in badan oo kamidi ay sida ku tagayeen qayb weyn iyagu ay ku leeyihiin ilaahay baan idin ku dhaarshay ninka dadkii uu qacanta ku hayay isfahmi waayeen intii gaarka u ahayd ee uu ku tabcay ay ka dhaqaajinayso walibana ay ka dhaqaajinayso markay mustawa gaadhaan cilmiya wax fahmaan indhaha kala furaan ay ka dhaqaajinayaan
muxuu hayaa ummadda inta kale nimanka dabada ka laadaya aan u dul qaadanay ee bidcaynaya walibana erayada aynu sheegnay kula hadlaya ummadii aan awal bal la soconay banaanka ka joogtay ilaha salafiyiin baan muxuu hayaa waxba ma hayo muslimkii kala muxuu hayaa جماعة الاعتصام بالكتاب والسنة وحيابها وقوها وين لقوها يستمع حاكمة تبليغ يسود ويستان إخوان يسود ويستان جماعات كمسلمين تدين توشقين إياه مرهديان ما بدعيان ويدفاعان بالله يستان ليا بمسجد مركا انت يرى لتشوكتا إني مربك بحث انت هذا دكتوراه ودنا إن بدن بكلي لكن وان اوغاهيا كوا لفتودا in badan uma soo socoto warkooda waa haya kuwa jooga laftooda hadda soo socda ee masterka iyo PhD ga wada waxa weeye in badan baa soo socod oo qaar ay leeyihiin dalkaba tagi meeyna waa ka wareegin meel kale aan u wareegin qaar ay leeyihiin markaan dalka imaada isugu kaaya dambaysa qaar intaanu isfahanay ayay yiraahdeen idinkuba markaa dalkii tagteen saldhigateen بعد وحلا صوب بحذينا لو هنقول قرحنينا فصحيان وتجي له فرحنا كقاض مركانو صوت لما ينانو صعدينه مركوا سوقينا هدان وحكى لضوفسد كواس الوصول صعدا مركا ما يسوي ديين ضد كان نوع عاس علمي قاله مركي مستواها سوق قاعدة كبحية دكتور أحمد إمام علماء ديات كو أمانين إنه حريا بكبد هاي marka jaamacadda la idin aqbalo wax ka dhigta maantana halka la marayo waa ogti isaguna kutubu kaalif cilmigiisana laba iskuma khilaafsana waxa lamida Dr. Ahmed Daahir Aweys oo ragii bilaabay manhajkana oo ragga Soomaaliland joogay uga horeeyay madaxdii itixaadka iyo ixtisaamkana ahaa oo maanta hadana aad arkayseen maalin dhaweed hargeysa muassasatu al-karam lid-da'wati wat-tanmiya muhadara ku galay oo la dhibay oo waxa weeye la dhibaatay iyo culimo badan oo Soomaaliyeed oo lamid ah waa intii la soo shaqaysay ahayd oo maanta banaanka ka jooga taasi cibray ugu filantay maxaa la diidayn waxa la diidan al-ghuluw fi at-tabdi' wash-shiddatu ba'da dhalik in dadka la iska bidciyo marka dambana sutida loo qabto waxyaabaha aniga igu dhacay in badan waxa kamid ah markii aan burca ku soo noqday ragaan waa asxaab ahay raguna waa kala fiican way kala dabeecad wanaagsan kii awalba dabeecadda adkaaya kali socodka ahaa waxyaabaha aad buu uga helaya waayo uu ku nafisay laakiin ninkii dabeecadda wanaagsanaa marka public la yimaadana waa ka dhuumanaya meel gaar ah markaad isugu tagtaana si fiican buu kula sheekaysanay waxyaabaha lagu yaqaanay kamid dabeecaddiisaan aqbalay manhajka noocaas marka ragga mutashaddidiinta ah qaar baa markaan dalka imi anigoo gaadhigayga wato laamiga dhex maray oo dawladda marka PhD iyo leeyahay waa Dr. Xasan oo doctorate soo qaato burcada baash way ku cusubtahay يا هرجيسبة أيها وحويه عن سلام أنا قارئ وط طبعا أنتوا السيدة أيه مكسرة أيها حلوة بدعولي يا الوار كذا سلام سلام تيمان كوعري وسوق الحديث صدق شربان سلام وارهب لو مقول أنتوا يسوع أيه بيقولوا ولا دي ما مسجد كيان أنتوا تشيلي ما كجاري عليكم السلام يبارك والله الذي لا إله غيره ساسودع halkaasoo ka baxay inta kuma dhamaanay markuu masjidkiisii tagay ayaa kuwii masjidka kula tukanayay buu shiriyay qaar baa ila soo hadlay isagu wuxuu shiriday waa isku manhaj baatay laakiin niman anigana igu xidhan bay ahaayeen oo yiri war sheekh bal xaalku waa sidii galabtii markuu u tagay ayuu shiriyay wuxuu yiri ninkii ay boonbooninayeen ee doctorka ku sheegayay ayaa maanta wassalaamu calaykum iga dabahay wallahi kama qaadin muxaadaro ka dhigto intaas ku bilaabo wuxuu yiri
لا تعزوهم وقد أهانهم الله أهل البدع إلهي بعد الليها عزينين marka haliyay buu iska dhigayaa sunnadii dabaqay waxa la isku hayana wax badan oo kamid ma fahansana ilaahay mahadi maanta ninkaasi shaqo kuma leh wax shaqo uu ku leeyahay waxa weeye ma jirto mar labaad waxa igu dhacday laba nin oo xaafadda ila degan oo xaafaduna waa fogeyd ayaa bariishka deeran la yiraahdo burco qofku markuu ka gudbayo gawaadhidii magaalada isaga gooshaysay boor iyo siiga ay ku kicinayso oo anigoo maalin haddaan lugay naftayga ga baxdo baan arkay iyagoo baray waa laba nin oo asxaabtaas dhalinyaro dadkii iga dambeeyay waan isu taago waxaan siigada iyo boorka ka qaad istaaguna waa adka buundada dhexdeedii waan isu taagay soo fuulaban mid baan magaciisa garanay Abdullaahi oo soo fuul uu istaagay oo soo fuulay saaxiibka u yeer baan ku waxa inuu iska socday intuu soo istaagay buu ayaan ku saaxiibka u yeerday wuxuu naga soo eegay gaariga soo fuulay dabeedna intuu la hadlay war soo fuul gaariga markaasuu intuu codka sare u qaaday buu anigu gaari walba iskaba fuulay dabeedna rag baan u sheegay waxa ay maalmihii dambe marka bariishka soo baro waxa weeye siigada ku kiciya ma dhibaataynayo laakiin waxaan uga jeedaa uma joojinay waa dhaafa ila siigadu kulli way kacaysa marka ku sii fogaan maaye mawduucaas caalamka wuxuu mariyay iyo inaga wuxuu ina marinaya lagama sheekeen karo inaan ka yara dhalinyarada ee maxadka dhiganaya ee suuqa laga soo qabtay oo maanta xaqiiqadiisa aynaan ogeyn maxadka markuu dhiganayo ee aad culimada ku dirayso waxa uu ku mashquulsan yahay social media uu kaga jiro iyo waxa uu qorayo iyo sidoo culimada ugu afdheeraanaya aan laga sheekeyn karin anigu waxaan isleeyahay diintiisa khatar la gelinay dhaqankiisa illa hagaajiyay iska daaya dhaqankiisa la baabinaya marka lagu ababinayo culimada in lagu tabdiiciyo imaam jooga Canada ayaa wuxuu ii sheegay waan Allah ayaa hadii la doonayo in laga sugo waa sheekh weyn oo culimada Soomaaliyeed dawladaha gaaladu masjid weyn ku hay wuxuu waxa noo yimi sheekh Mustafa Xaaji Ismaaciil iyo sheekh Dir baa la casumay masjidkii ugu weynaa magaaladu imaam ka yahay baa lagu casumay wuxuu yiri ragga qaar maanta halkan jooga ayaa dhalinyaradii guruubyada cod ugu duubay oo yiri ragga noocaasi waa xisbiyiin yaa la dhageysan muxaadarooyinkoodana yaa la dhageysan billaahi calaykum inaan yaro Soomaaliyeed oo Yurub jooga oo culimadiisii uu eeganayo Soomaaliyeed ee la yaqaanay ee waalidiintiisu dhageysanayeen doonayeen oo hor fadhiisto marka la yiraahdo waa xisbiyiin ka fogaad oo ha dhageysanina inanka noocaas ee dhul gaala jooga xaalkiisu muxuu ku dambeeyay marka culimada looga digo la yiraahdo ha dhageysay oo dhageysanay waa musiibo marka manhajka laga digay waa laga yaabaa baroor diiq badan inaa maqashaan salafkii baa la duray culamaa salaf baa la taaniyay manhajkii salafiyada wax laga sheegay warka annaga haysana annaga ku dhimanayna ku taagan laakiin maxaa waxa weeye waxyaabaha gaarka ah baa la diiday salafiyadana annaga u nisbo sheeganay Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah wuxuu leeyahay ahlu sunnati wal jamaa hum a'lamu an-nas bil haqq wa arhamuhum bil khalq ahlu sunnaha dhabtaay xaqa dadka iyaga ugu yaqaana oo ugu cilmi badan dadkana iyaga ugu naxariis badan waxa weeye raxmadaas ayaynu doonay masalada ku fogaan meena intaasaynu ku dhaafin masalada labaad walibana waxaan idin sheegaya dawaabid tabdiic baxthi baan ka sameeyay maxaa ahlu sunnaha lagaga baxaa maxaa lagaga bixin
محاضرة جارة أو ساعات يبرد بان كجلي دونا إن شاء الله تعالى هورنا وانو جرا لكن متكسي فافاسم من جلي دونا بإذن الله عز وجل مركا أنت سوى مقدمه وحيابها ولا لها نكدي دنها وحكم إذا وقضب كاللبات وحوي نين عالم هدو هدلو قول لي هذا الكيس هو مجمل وملك لكعدي والله فسريا أما هو مطلق وقيد بالله هي أما الله يسكت ضيع عذر دار إلا الله ضيعه هذا نك للدون إن هلفها الله قاضي هذه للدون ينا سكسته والله الدفاعي سكسته والله الدفاعي منهج كان ويا قناة تصال يا شيدنا وإن شاء الله تعالى وإن فافاهن دونا وأصل أدوي أصل واحد وجه إذا يعني قضية وين واستعماله مسألة صدحات ويدنا فرد قارة يبقى أنت لك هو الشيء إنه حيابان كوكل دونا وحيديه إلا سميه تنظيم دعوة إلا هبيه إلا أساس جماعة دينية والدعوة كشقيسة وتعاونوا على البر والتقوى ضوابط بيلاذة وأن أتعصبي وأن سؤال كان إنه جماعة المسلمين وعدي وحوي خلافتو النصيحانيس عدي لا شقينيس أنا لا شقينيس عقيدة أهل السنة والجماعة كصعني شروط هذي كصبحان إن لا سميا إني بنان تهي وعلمنا الصوماليات مركا يجا أمو يعني أي ودا أقوليه مد يا مد أنا هيم مد يسقوه جامية كا يا مد عالم وينوله وبنان تهي لبضو ما يسقو شرا مسألة النوع عاصنا ميل أذك بيسكتاجين يدنا إن شاء الله تعالى وحلقة دياريي لو بقولوا بيش وحكودوا علماء ووينا ما هكوي جماعات ككوشرة يجوا علماء وويل كوا لسوق هذا الماي وأي نك وحي وكل حشرة لما ويديو الشيخ وحويه صاحب بالنيسانية ما واحد ويدين ليس حكم كهسه ويدين ميس لكن علماء أي آمن سنايين فتاوه ديو علماء أي كقناع سنايين فتاوه ديو وإنه هينا إن شاء الله تعالى هدي ديدين ما حيكون ديدين هدي بنايين ما حيكون بنايين وأنا مسألة عن إسلامي هي خلاف كأجوين وكاس وحكى له ملا أول تانا وحى عديي ضد بعد يكون سجال بقول سديد يسجاشك اللهم حريست الشيخ علماء دودي ووينا كم إذا ضد وقيب قلي أيها وحول والله هيا وحوي هداد مقع يسكت ديسان ولا علينا نقولنا كتاب بين وضحي سنة نبي بين وضحي سنة وحنين وضحي سنة وحنين كم ديسنا هاي مقع سنة ديدن الاعتصام بالكتاب والسنة هداد مقع يسكت ديسان هو شو يسوعنيس مركا دي مقعي ما يهي وحلا يسكت بدعيه مسوى مساله هذا الكفري ضد كفر أنت وهدي حتى نقول دي عيد عنه كبد عين كريم إن شاء الله تعالى فرد بيباهنت وذات كاسي وحول هدي مقع للدايه وش ورد مانيس وذات كي هالك كهاللينا وحول هدي اللي هذا عرة ومسلم هوش ورد مانيس مركا مقع عيد الدين ما يسلى لكن عرة إنه مسلم يا ولا يدي شيء ولا يدي شيء لكن مقع وحوي فربا فوق ذول هذا الباكت هاجس عجائب تدعضي وحكم ذا مركي أن شام عدة شوقي عن سوق الشبيلي والله يا يبان أتجي الشيخ صالح الفوزان وعلماء ذا ليسوا فقصين هيا يقولون يا أدو قدرية الشيخ يبان حفيز كيس وقلت تجوح عن الشيخ ما حي كلتها إن وحوي يدد أهل السنة إن السمايستان جماعه oo kitaabkiiyo sunnadii iyo aqeedadii ay ku shaqeynayaan isu kaalmaysanayaan nimanka noocaas ee tanziim samaystay ee jamaaca samaystay hal yajuuzu tacaawun macahum waan ku celinaya sheekha maan weydiin jamaaca ma la aasaasay way markaan weydiinaya nin dhexdhexaad baan iska dhigayo aan cidna ahay
wala dhexdhexaadkii baan isku ogaa marka waxaan ku uri ma banaan tahay jamaacada in la shaqeeyo arday baanu nahay waanu qalin jabinaynaa dalka yagi jamaaca weyn ba ka jirta oo dacwada wada niman kale waxa jira iyaguna walaalaheeno la salafiyiin baanu nahay oo la nimankaasi jamaacadaas ay ku bidcoobeen lama shaqeyn karo maxaanu yeelaa baan weydii waa 2012 2013 baan dalka soo degay sheekhi wuxuu ku jawaabay wallahi ma yasluhu at-tabdiic wala at-tafsiq ma wanaagsana illa isbidceeyo insaxuhu kuwa wax bidcaynaya u naseexeeya halka maxaa ka fahmaysaa halka maxaa laga fahmayay jamaaca in la sameeyo hadaanay banaanayn muxuu oran lahaa de way saxsan yihiin ma banaana jamaaca in la asaaso ma oran sheekhu kuwa bidcaynaya inay jamaaca asaaseen buu yiri wallahi ma wanaagsana haloo naseexeeyaanay bidcay waan ku celiyo waxaan yiri hal yajuuzu at-taawun ma'ahu wa iswaashiga muu jawaabin ma yasluhu at-tabdiic buu ku jawaabatay hore waxaan ku yiri hal yasluhu at-taawun ma'ahu sheekh ma la shaqeynay way dadka qaar ba farta waaweyn loogu dhiga sheekh wuxuu yiri naam yahuudi baa la tacaamulay iyo nasaaradii baa la macaamila wixii dana wala la macaamilayeen wala la shaqeynay su'aashaasaan weydiiyey waxaan idin sheegayaa dhibkayna haysta su'aashaasaan weydiiyey saas uga jawaabtiina 2012 baa la faafiyay wala buu ka dhashay oo la isu jawaabayo mudday waxa weeye social media ka shiday dhowr sano ka bacdi baa la koobiyay nin kale oo isaguna sheekhu hada doctor Allah yaxfadu oo raggaasaba isaguna wuxuu u tagay sheekh Saalax al-Luhaydan ayuu tagay xafiiskiisu ugu tagay masjid meel ay tahay inuu yahay su'aal buu weydiiyay sheekh waxa weeye dad baa sameynaya kooxo kala tagsan oo mutafarriqiina oo sidana miyay banaan tahay dad saas u kala tagsan oo sidaas in diinta lagu sameeyo ma yajuuz buu sheekh dabeedna wadaadadii naqas baa ka soo baxay oo bahashi baa meel walba laga tuuray Saalax al-Luhaydan baan weydiinay waka waxaan ogahay haddaan Saalax al-Luhaydan ku noqdo sidii Fawzan aan u bedelo oo aan idhaahdo niman walaalaheeno dacwad wadaba isnidaamiyo gudoomiye samaysteen al-kitaabi was-sunnah bi fahmi salaf al-umma anu macaaniyo muxuu oranaya la baas la shaqeeyo buu oranaya marka khilaaf badan oo jira 200 ee beej fataawaha ee aan leeyahay sheekhna waa banaynaya sheekhna waa diidaya bal sheekh kaliya marna banaynaya marna diidaya maxay ku timi midna wuxuu wataa bahashu waa ma banaana waxyaabihii uu ku diidayay buu intuu isku habaysto dad kala tagsan oo iskhilaafsan oo mashaajidii iska xidhay oo isbidcaynaya oo aan is salaamay jamaacadka noocaas ma banaantay la sameeyo aniga oranaya waxaan fataawaha sadabadna la soo qaadanaya wala itlaaqay dhinaca kale mid kale wuxuu oranaya dad walaaladeena oo aqoonadoodu fiican tahay oo isu kaalmaysanaya inay dacwada faafiyaan isqaybiyay ishabeeyay diintu maxay ka qabtaa oo aqoonadoodu ma fiican tahay ha la baas buu oranay waa hal sheekh marka ila qiyaam as-saa'a ma gaarayna qiyaam as-saa'a oo ma indhooba umrigeenu dhamaanaya ardaydeeniba iyagoo dhalinyaro qaar dhimanaya shal ku dhimanaya ilaahay baa og intaynu inagu simayso ila xilli maynu wadayna inaynu culimada fataawo kala soo baxno oo nin waliba sida uu doonayo uu dhigay waxa idinkaga filan inaad ku dhaaftaan mas'aladu waa mas'ala khilaafiye waxa diidantihiina shuruud ba uga dhiga laakiin min asaasiha ma banaana samaynta la sameeyay oo kaliya sunnada lagaga baxaya wa kalaamun ma anzala Allah biha min sultan labada boqol ee beej ee fataawaha culimadaasi leeyihiin oo si yaro fudud dhalinyarada loo khaldayo loo oranayo waa fataawa qadiima kuwa cusub baynu qaadanayna
iyagoo ku dhisaya masaladii usuuliga ahayd saaxibul maraaqi uu yiri wa qawlu man ruwi anhu qawlani mu'akhkharun id yata'aqabani sheekha laba qowl hadii laga soo wariyo ka dambaa la qaataa dabadeedna hadduu yidhaahdo kanaa dambeeye waa ka daba tegayaayo sheekha laftiisi baan qaabkii wanaagsanaa ugu dhigayaa mid abdeyda baan ka soo saaray anna waxaan odhanayaa tanaa dambaysay isna uu iga dambaynayaa si kale ugu dhigayaa dabadeedna ilaa aakhir intaanu nool lahay saasaanu isu daba soconay ninka xakiimkaahi waa fahmaya meesha inaanay waxba ku dhex jirin fataawahana ninba ninkuu ka culus yahay ee ay ka aaminsan yihiin ayaynu insha allahu tacaala soo bandhigi doonaa waxaan idiin sii qishayaa iyadoo faahfaahsan baynu iman doontaaye nin waxa weeye arkaantooda ka mida waa dhintay allahu naxariistay cubayd aljaabiri ayaa qolo maqrib joogtaa waxay yidhaahdeen salafiyiintaydii halkaa joogtay waxaanu aasaasnay jamciyatu dacwati ila alkitaabi wasunna jamciyadaasaanu aasaasnay maamul bay leedahay manhaj baanu u samayn waxbaa loo sheegay maxaad nagula talinaysa sheekhu muxuu ku jawaabay waxa weeye aad iyo aad baad u fiicantihiin anigu dalkaydii lama joogo isagu waa sacuudiyaan iyaguna marocco joogaan anigu dalkaydii lama joogo idima kala aqaan laakiin nin munaasiba doorta oo guddoomiye ka dhigta waxaa lagu celceliyaa maanta madaxweynaha la samaysta iyo madaxweynaha halkaa fadhiya nin munaasiba doorta buuri kow manhajkana dhib male aniga iyo cidda la midka inaad nala wadaagtaan oo aanu idinka eegno manhajkaa ku shaqaynaysaan haddii la yidhaahdo wadaadadii kale manhaj bay leeyihiin daabacan ya mar baa showlaysiyey dadka aada u qaybiya hadda cidiba ma qaybise war waa qaybiya baalka cidiba ma qaybise hadde mar baa la qaybiya mid yaroo jeebka gelaya xasul muslimka leeg dabeedna waxaa la yidhi nimanka diintoodiiba jeebka ku sita manhaj yar bay samaysteenoo jeebkay ku sitaan shiikhu wuxuu yihi manhajka inaan idinla eego waxba kama qabow aan idinla dejiyo idinka eego bilaahi calaykum hadduu noqdo mid jeebka gelaya iyo hadduu noqdo mid ila qaba ah ma farqi baa udhexeeya wax farqiga uma dhexay laa farq waa manhaju ama mid weyna meel yaalla hadduu noqdo wax farqiga udhexeeya male waa isku mid manhaj baa la dejiyey waa sheekh cubayd aljaabir culimadooda waaweyn ka mida waxaan goobjoog u ahaa sanadkii labaad aan jaamacadda dhiganayay in la yidhi sheekh rabiic almadkhali baa maka ku soo socda wax allaale wixii salafi ay isugu yimaadaan magaalada duleedkeeda beer weyn la isugu yimi istiraaxa la yidhaahda halkii baa lagu casheeyey bacd alcishaa la fadhiistay labadii habeennimo cashadii naloo keenay sida sacuudiga lagu yaqaan arooskooda iyo munaasabaadkooda ka soomaaliga waa iska luloodaa indhuhu isku qabsadaa kowda iyo labadaa la keenay annagoo aan cashayn baa habeenkii oo dhan hebel baa sidaa yidhi waa bidcoole hebel baa sidaa yidhi waa khaldan waxaasaa la waday rag badan baa nala joogay oo aan magacyadooda sheegi karo hebel iyo hebel laakiin cid badan ma magacaabo shiikhu siduu u waday ayuu daalo wuxuu yihi waxaa iga nasinaya sheekh cubayd aljaabiri rabiic almadkhali baa fadhiya waxaa ku xiga cubayd aljaabiri oo la da-aada labaduba waa dhinteen allah u naxariisto waxaa fadhiya ibraahim aruxayli oo hadday daaqadda kala baxeen waxaa fadhiya sulaymaan aruxayli oo raggooda waaweyn ka mida hadda waxaa fadhiya cabdallah cabdiraxiim albukhaari waxaa fadhiya moxamed bin haadi almadkhali oo raggooda waaweyn ka mida oo markii ugu dambeysay rabiic almadkhali uu ka digay oo dagaal dhex maray isku qabiilna ay yihiin raggaasoo dhan baa sidaa u safan ninka la bartuugee nasinaya cubayd aljaabiri buu ahaa ninkaasaasaa ku jawaabay oo sidaa u dhigay marka masalada noocaasana insha allahu tacaala fataawahaas intooda ugu muhiimsan iyadoo faahfaahsan baa la maqli doonaa jalsad iyo 2 iyo 3 intay doontaba ha qaadato waxa weeye taana cid waliba ku filanta way diyaarsanta marka ama anigu aan jeediyo ama cid kale ha jeediso fataawahaas baa la akhriyay insha allahu tacaala
مسألة فتاوها علماء يا أقواشو ذا السيء ولا دقمانا وحيابها ينكوها يسنوا وينكوها اللي دونا إن شاء الله تعالى قضبك أفراد وإسككوا من وحوية موقفهم من العمل السياسي سياستنا ميل أدق بكتاقي وذا ددن كله موقف كودي وعد ديستين waxay yiraahdeen inagoo dacwad wadna magacii dacwadda lagu shaqeynayay siyaasad lagu gali maay culimo wada socota al-i'tisaamu bil kitaabi was sunnah inuu sida siyaasadda ku galo ma yabali walow doodii ay jirto rag qaar leeyihiin war maxaa diiday laakiin waxa weeye culimada waaweyn siday qabaan oo anigu ragga u fatwooda aan kamid ahay mamnuuc way waayo diintii iyo dacwadii bay waxay kula soo noqonaysaa dhibaato ay kula soo noqonaysaa dastuurka Soomaaliland xisbiyada furan waxay diideen xisbi diineed in loo furo siyaasad way ku taalaaba marka macalmaaniya iyo wadaadada bahasha lagala dagaalamaya waa la oran kara oo diintii baa laga fogeynaya oo laga yaabo dadka qaar ay ku macnaystaan waxa kale oo suuragal in lagu macneeyo waarday diintii dadka ka wada dhaxaysay ma diintii baa la tartamay urdiimeed wada culimo ah oo wada khamiis iyo xamaamad xiran oo misaajidada iyo khudbadaha inoo wada campaign-kiina lagu gaari maayo oo markay jimcayaasha isballansadaan dee jamacaaba ku filan cidina ka guulaysan mayso bahasha siyaasadana xaq baa loo wada leeyahay markaa diinta aynu ka dhegaysanay siyaasad markay noqoto misaajidada ka soo baxaan oo shacabka oo dhacod ha weydiistaan waa laga yaabaa siyaasiyiintii qoraysay la bahasha siyaasiyiin baa qoraynta badan in iyaga laftoodu is yiraahdeen haddii aad xisbi magac diineed ku socda hadduu soo galo waxa weeye waa sidaas xisbigii badbaado soo ma xasuusataan xaq soor iyo badbaado iyo markii la daatay dalka ma joogine dee badbaado ilaa hadda waxay ku doodaan raggii wadi rag wadaada baa wadayo jamaacadu shaqo kuma lahayn laakiin rag baa go'aansaday inay dalka hogaamiyaan shakhsiyadooda dhaqaalahooda ku socday wadaadadan kale dacwadda wada waxa weeye miidiyahaasay la raftaan lacagtiisa laakiin nin u banbaxay inuu dalka maamulo waa qiyaasaysan wax laga doonay dhaqaalaha ku baxay wax jamaacad dacwadeed ka baxaysa ma rag baa jeebkooda iyo xiniyahooda ugu banbaxay marka ilaa hadda waxay yiraahdaan waarde bahashi baana lagu dabaqayo anagu da sidii nidaamkaanu isu diiwaan gelina laakiin dambi dhawana la ogaado wana laga saaray waa dood waxa weeye ay ragaas isku difaacaan laakiin waxaan uga jeedaa waxa weeye siyaasadda waxay culimadaasi leeyihiin ninkii ummadda wax u qabanaya قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم يوسف عليه السلام وحول واحد يدي بتا وزارة المالية وهي علم جيدا نوان هي آمن نوان هو علينا يا حوله ونبي يوسف عليه السلام وحال كان لقاقات نكا يسكو كالصون دون يا أمة إنه وحقبته نيدي سوء وناك سنتهين اللو ديدي هدو برلمان قليو هدو وزير نقريو لكن دعودي آنو متلي وحنا أركي رجله وحويه نمان كان وحكسو جيدا فهد ياسين وارنين مدحوينهم مقعاضي oo shaqo tagay waxa weeye oo waajibkiisa iyo shaqadiisa gudanay mar hadii madaxweynuhu magacaabay miyeynaan isku ogeyn madaxweynaha in la adeeco amarka madaxweynaha inuu fuliyo dawladda inuu u shaqeeyo waajibaadkii loo diray inuu ka shaqeeyo wadaad yar oo masjid fadhiyo lafihiisa uga baqay isaga laftiis maxaad ugu xoqaysaad leedahay ninkaas aydi nimankaas aan kamid ah oo waxaan aqliga gelin oo wax la yaab lawi maalin buu soo maray maalin buu ahaayo isaga sheegtay waraysigiisa dhageystay haddaan sheegayaa anigu haddaan galo oo aan wasiir noqdo ama xildhibaan baarlamaan noqdo cid aan matalayo diin ka shaqeynaysa ma jirto nafteeda matalay
kuwa hadda joogaana waa sidaas haddii suldaan uu noqdo dhinacna uu shiikh ka yahay niman salaadiina baa la daba taagan yahay oo la leeyahay waa ictisaam oo shalay bay ictisaam ahaayeen go'aanada uu qaadanayo dad buu u taliyaa dadka dantooda ku xukumaya suldaankuna ma gooye wuu guddoomiyaa sida dhaqanku yahay cuqaashii baa soo shiraysa guddiyada beelaha soo shiraya waxay dantooda u arkaan buu u jaangoynaya marka haddii la yidhaahdo go'aankaa waxaa qaatay wadaad ber hore ictisaamo maanta suldaana marka qoladaasina maanta waxay la safteen qoladaas iyada lafteedu baatil weyn waa dulmigay ka mid wuxuu matalayaa dadkiisuu matalaya ha ku xidhnaada asxaabtiisii laakiin markuu go'aan qaadanayo muxuu ku qaadanaya ma magaca beeshuu ku qaadanaya mise magacii wadaadadii uu ka tirsanaa dee magaca beeshuu ka qaadanaya meeshuu go'aanka ku qaadanaya beel baa joogtay culima ma joogin beeshiisaa go'aan ka qaadatay marka waxyaabahaasoo dhanina waa min baabi talbiis alxaqi bilbaatil xaq iyo baatil baa la isku khalday qofkuna xaq buu u leeyahay inuu go'aankiisa marna ku qaato suldaannimo marna uu ku qaato siyaasi mar uu shiikhnimo ku qaato mar walba kuu ku qaato ayuu ku gowracay oo lagu xisaabinaya mowqifka aanu ka aaminsannahay siyaasadda marka la soo koobo waa intaas iyagu waxay meel adag ka taagan yihiin siyaasadda in laga qayb galo waxyaabahay dadka ku haystaan ay ku bidcaynayaan waxaa ka mid a inay siyaasadda galaan waxaa ka mid a inay siyaasadda u socdaan waxaa ka mid a inay doonayaan dalka inay qabsadaan waxaashaa kalla anigoo xasan sheekh cali ah baan maanta isku aaminayn dalka isku aaminayn shiikh baan ahay oo diin baan aqaana oo waxbaan wacdinaya oo salaatuleyl baan tukadaa oo maalinkii baan soomaa ummadduba hadday kuu codaynayso lagu heli maayo madaxtinimo lagu heli maayo abudar yaa ka cibaado badnaa wuxuu uhi nabigu calayhi الsalaatu wasalaam ya abaa dar inaka daciif wa inaha amaana ya abaa dar inii araaka daciifa وإني أحب ولا حديث مسلمة وإني أحب لك ما أحب لنفسي فلا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم علم الدين هذا كلية أمد اللغة معموله علمنا واللو باهية كباستي يا أودي يا خبرتي أمد اللغة هجلهانا واللو باهي مركز الشيخ بانا هيو كلية بان مدحوينا كدونا يا ما من سنين جماعات دينية كلية صعوتا يانو ضدكانو أطلينا وحوية ما أمن سنين كم مار من مايا إني وحوية ددك للدولة أمدا كمدة أو خبرتك للدولة إني لا شقية هذا هاي سياسة هذا هاي دقالة يا وحي لميدا مسألة ضوضة بضبا كفر لكن يقول بحياة من سيء حتى قفك الشخص أمدا وحق بنايا إن وحوية اللي قفوقيه وحنا الله يابله ninka wadaadkay wax ku haystaana hilfahay u qaaday markuu xil qabtana way la shaqaysanay oran maayaan waa bidcooli oran maayaan yaa la inagu arki markuu xil qabtana way la shaqaysanay oo way la tacaawunay waa laga yaabaa inay yiraahdaan dawladdaanu la shaqaynay way la tacaawunay marka mar hadday sidaa tahay oo danana kaga xidhmayaan waxa weeye inay mowqifka wax ka bedelaan bay waxana la yaab leh maanta iyagoo mowqifka aan cadayn bidaar sibiq bay ku gashaabaalay bay wasiir noqdeen murashaxiin noqdeen bahashii sisiyar ay u galeen meelay kaga toobad keeneen oo ay yiraahdeen war waxaan oran jirnay siyaasaddu waa xaraan maanta wixii laga bilaabo ninkii lagu kalsoon yahay ha galo waynu soognaa xitaa way codeeyaan waliba kaarkii waa qaatay codaynta waa codaynay xaqna waa u leeyahay waana loo ogolyahay in la codeeyo raaskiisu hadday xildhibaan dooranayaan waxa laga yaabaa isaga iyo ciyaalkiisa inay safka galaan oo ay codeeyaan waana xaaraantinimay hadhowna waa la macaamilaya marka taana waxaan odhan lahaa bal dib ha ugu noqdaan oo intay wax qiimeeyaan dadka asxaabtooda raggiina waa batay oo maanta kumanaan baa u soo baxay
master iyo PhD wada ragga fasaxo ummadana way anfacayaan waayo hadii dadka laga xidho de waxa weeye in juhalaaba isugu imanaysa siyaasadii marka dadkii wax bartay diinta lahaa inay ummadda hoggaan u noqdaan waa loo baahan waa in lagu dhiirigeliyo marka taana insha Allah taala in badan bay yiraahdeen kutubna way ka qoreen waxa weeye kamaradaha mishaadka in la soo geliya ma banaana qaar isku bidceeyeen in badan bay diidayeen oo xaaraantinimeynayeen waxa weeye hal mar bay bahashi oo dadka qaadeen meelay ku cadeeyeen oo ay kaga noqdeen ma hayno waxay aad u diideen jamciyada in la sameeyo hal mar baanu aragnay jamciyatu sunna wa jamciyatu fulan 78 wadaad waliba jamciyad sameeyay warma hal xabad sugu taga tobaneeya la sameeyay sinac yaacay jamciyad arrimaha khayrka ka shaqeynaysa markii aan ardayga uu ahaa waxa dhagahayaga ku badatay nimankan ictisaabku cilmi iyo dacwad kama shaqeeyaan buundooyinka dhisaan iyo hospitaalada iyo hawlahaas wallahi alladhi la ilaha ghayru ilahi ba ku dhaartay in badan baa laakiin jamciyadahoodu maanta bariisha hadhisaan oo buundooyin hadhisaan annaga ugu ducaynayna ku taageerin iyaduna way soo gashay hal mar baa la arkay oo dadka soo qaado jamciyadu waxa kaba daranba oo social media ku aragteen muassasatu al-basira lid-da'wati wat-tanmiyah karam ba ka horeys muassasatu al-karam lid-da'wa wat-tanmiyah muassasatu fulan lid-da'wati wat-tanmiyah mar haday muassasad noqotayna looga leh nidaamka wadanka ka jira wuxuu yahay hadii la adeecayo waana filayaa inay diiwaan galiyaan mar hadii la diiwaan galiyna waa bahashaya wata yaa gudoomiye ka madaxweynaha ka soo baxay madaxweynahaasi wuxuu yeelanayaa branch burca ya mid boorama ya mid waxa weeye ceerigaaba ma waxay ka shaqeynayaan siyaasad mise dacwo ka haya kulmiye wadana xafiisyadoodii ma aha waa diin dacwad baa laga shaqeynay muassasatu kada lid-da'wati wat-tanmiyah dawladdu waa ogta fasaxna waysis bahashi la iskuba haystayna iyaduna wuxuu ri gadaal buu ka soo galay ya bahashi bay gadaal ka soo galay marka 15 qodob waxaan marayaa kii afraad baan marayaa halka maanta inagu joogo wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam